السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرنامجكيني ما ogtahay qaybtii 16aad. ma ogtahay dadka ugu badan ee ku dhibaataysan magaalada Burco inay yihiin tuugta oo marka ay wax dafaan ee la cararaan dadka inta aan ordi karayn ama danahooda kale ka badan yihiin ee aan ka carari karayni ay qaylada iyo qabtada ku caawiyaan inta kalena ay yareenayaan ilaa ama ay gacanta ku dhigaan ama uu si dhib la kaga fakado. ma ogtahay bedka qaaradda Aasiya inuu yahay 44 milyan iyo 579 kun oo kiiloomitir, boqolkiiba 60 dadka caalamkuna ay ku nool yihiin iyada. ma ogtahay in Sacuudiga laga wado dhismaha burjigii ama dabaqii adduunka ugu dheeraa oo uu dhulka ka sarreeyo 1 kiiloomitir. ma ogtahay Hindiya inay tahay waddanka ugu badan ee soo saara maangaha ama cambe lafta ayna sanadkii ka baxaan 12 milyan oo tan oo maango ahi. ma ogtahay dalka Malaysia inuu u qaybsan yahay 2 waaxood oo waaweyn oo bad xooga ah u dhaxayso ayna ku dhex teedsan yihiin jasiirado yaryari. ma ogtahay in Mareykanku gobolka Alaska ee xadkiisa ka go'an uu ka gatay Ruushka kana siistay 7.2 milyan oo dollar 1867kii. ma ogtahay dalka Zimbabwe lacagtiisu inay xambaarsan tahay tirada ugu badan ee lacag warqad ah lagu xardho oo ah 1 trilyan oo dollarka Zimbabwe ah. ma ogtahay qarnigii 20aad horraantiisii in shacabka Mareykanku ubadkooda darajada saaran marka ay meel u dirayaan ay qaabka warqadaha boostaha u dhigi jireen oo u diri jireen sidaasna cidii ay ugu direen loogu geyn jiray. ma ogtahay dambigii ugu horreeyay ee aadamaha dhex maray inay sabab u ahayd quruxda haweenku oo ilmo nebi aadan ay isku dileen inan qurxoonay darteed. ma ogtahay dalka Singapore inuu yahay mid aad u yar oo ku yaala Malaysia ayna kala xadeeyaan 1 kiiloomitir oo biyaahi.